dunida xayawaanadu waxaa ka buuxa habab taran kala duwan oo la yaab leh, kuwaas oo muujinaya la qabsiga iyo kala duwanaanshaha nolosha ee cajiibka ah. Mid ka mid ah kuwa ugu cajiibsan waa fardaha badda, oo cilmi ahaanna loo yaqaano hippocampus. Inta badan waa ay ka duwan yihiin nooleyaasha kale ee boqortooyada xayawaanka. Fardaha labkoodii ayaa ah midka uurka qaada, waana midka umula. Dunidu inta badan dhadiga ayaa umusha, dhadiga ayaa uur qaada, laakiin dunida badda gudaheedii badeedyada koodii labka ah ayaa uurka qaada, isaga ayaana noqda midka umuli doona. Tanina waa mid ka mid ah aayadaha kownka ee ugu cajiibka badan Alle, waana mid ka mid ah waxyaabaha dadka intoodii badan aysan ogeyn. Laakiin marka la joogo taranka biolojiga ee nooleyaasha, waa mowduuc si gaar ah dadweynaha soo jiita. faras badeedka labka ah si uu uur u qaado bilowgii hore, wax walba waxa ay ka bilaabmaan ishelid muddo socon karta. Labka iyo dhadiga ayaa waxa ay sameeyaan qoobkiciyaar isku dhafan biyaha dhexdoodii. Inta lagu guda jiro qoobkiciyaarkan isku dhafan ee labadoodii labka iyo dhadiga ee faras badeedyadu oo sidaa isugu dhagan midkood midka kale, waxa ay sidaa ay ku sabeeyaan biyaha badda iyaga oo isku dhagan. Marka ay diyaar ay noqdaanna, dhadiga ukumaheedii bislaaday waxa ay ku shubtaa kiish yar oo ilmagaleen oo kale ah oo ku yaala caloosha hoose ee labka. Kiishkani ee ilmagaleenka loo yaqaanihiisu waxa uu u eg yahay sida ilmagaleenka oo kale. Badeeda dhadiga waxa ay ukunteedii ay ku ridaa kiishkani ilmagaleenka ee labka, iyada oo adeegsanaysa xubin gaar ah oo loo yaqaano ovipositor. Halkaasi ayaa faras badeedkii labka ahaa uu uur ku qaadi doonaa, maadaama ukuntii diyaarka ahayd ee dhadiga ay ku shubtay ilmagaleenkii labka. Marka ay ukumuhu ay galaan kiishka ama ilmagaleenka labka ee faras badeedka, waxa uu labka isaguna dhankiisii uu ka soo daaya shahwadiisii si uu u bacrimiyo ukumaha gudaha kiishkan loogu shubay. Halkaasina ukumaha ayaa ku kora ilaa ay ka noqdaan faras badeedyo yaryar ah oo dhammaystiran, ilaa uu ka foolan doono. Halkaasi ayaa faras badeedyadu ay ku kori doonaan. Marxaladani uurka ee faras badeedkani labka ah gudihiisii ay ku dhex jiraan ukumahani sida ilmagaleenka oo kale, deegaan ku habboon oo aad loo ilaaliyey oo oksijiin iyo nafaqooyinkii laga maarmaanka u ahaa in ugu dambeyn bannaanka ay u soo baxaan ee halka ilmagaleenka labka ay ku helaan. Kiishkani ilmagaleenka ee faras badeedka labka waa shabakado xidid dhiig oo qani ah. Waxaa kale ee uu kiishkani uu nidaamiyaa milixda badda biyaheedii si ukumahani aysan u soo gaarin, taas oo waxyeelayn karta koritaanka ilmahani yaryarka ah ee caloosha uu ku sido. Kiishkani gudihiisii culayska badan ee biyaha badda ayaa uu ka khafiifiyaa, dheecaano gaar ah ayayna halkaa ku helaan. Muddadani uurka waa ay kala duwan tahay iyada oo hadba ay ku xiran tahay nooca faras badeedka labka ah ee uurka qaaday iyo heerkulka biyaha, laakiin caadi ahaan waxa ay qaadataa 2 ilaa 4 toddobaad. Dib ayaa faras badeedka labka uu fooshtaa. Marka la gaaro waqtiga dhalmada, faraska lababadeedka ah si uu u fooshto waxa uu si xoog leh uu u tuujiyaa kiishkiisii. Hal mar ama dhowr jeer oo isxigxiga ayaa sidaa u riixaa. Bannaanka ayaa waxa uu sidaa u soo saaraa ilmaha yaryarka ah oo nool ee faras badeedyada ah ee markaa uu dhashay. Tirada carruurta ee halkaa mar ee uu dhali doono ee bannaanku u soo saari doono ee ilmagaleenkii ka soo bixi doonana aad ayay u badan yihiin, ilaa iyo dhowr iyo 10 xabo ilaa iyo boqolaal ama xitaa in ka badan kumanaan ayaa hal mar iyaga oo isku wada xiran ayaa faras badeedkani uu fooshtaa. Muuqaalka faras badeedka marka uu foolanayo waa mid cajiib ah. Mararka qaarkood waxa uu u eg yahay qarax yar oo ilmo yaryar ah oo ka soo bunqanaya kiishka, yacni hal mar ayaa marka uu tuujiyo sida waxyaabo badan ayaa hal mar bannaanka biyaha badda ku faafi doona in uu dhacay qarax ilmo dhalisa.
laakiin farasbadeedka labka marka uu sidani ilmahani tirada badan ee boqolaalka ah ee uu dhalo ee ilmagaleenkii ay ka soo baxaan sida la filan karo oo inta badan dhadigu ay sameeyaan bilcagsigeedii ayuu sameeyaa. labka farasbadeedku caadi ahaan ilmahani ee uu dhalay ma uu siiyo wax daryeel dheeraada, keliya waa uu dhalaa waa uuna ka dhaqaaqsadaa. ilmahani yaryarka ah ee boqolaalka xaba ah ee hal mar bannaanka uu ku soo daayay iyaga oo madax bannaan ayay biyaha badda ay sabeeyaan. iskoodii ayay cunto u raadsadaan, iskoodii ayay gabaad ay u raadsadaan. mararka qaarkood waa la ugaarsadaa maadaama aad ay u yaryar yihiin. sida xayawaanada kale ee dabeecadda, suurtagal ma aha in uu cunto uu u keeno ee daryeel uu siiyo farasbadeedka. waa sida uu u dhalay, mid walba halka uu qabto ayuu ku qasban yahay, sida uu u dhashtay ayuuna ugu dhaqaaqaa. nasiib daro qaar badan oo ka mid ah ilmahan yaryarka ah ee farasbadeedka uu dhalay ilaa ay ka gaaraan qaangaarnimadoodii waa la cunaa amaba siyaabo kala duwan ayay u dhintaan, sababtoo ah waxa ay la kulmaan khataro badan biyaha badda gudahoodii. labkani fooshtay ee farasbadeedka waxa uu diyaar u noqdaa mar kale haddana in uu qaado saacado ama maalmo gudahoodii kadib marka uu sidani uu u dhalo. haddana dhadiga ayaa ay isku dhegi doonaan, taasoo ah ilmahani ee uu dhalay midkii badbaaday ee weynaaday ee qaangaarka noqday ee biyahani badda la qabsaday ayaa mid ka mid ah haddana ugu dambayn ay isheli doonaan. sidaasina silsilada taranka biyaha badda hoostoodii ee farasbadeedyada ayaana ku socotaa. aqoon-yahanadu waxa ay aaminsan yihiin nidaamkani taranka ee boqolaalka xaba ah in biyaha uu ku sii daayo faa'iidooyin badan in ay wada leedahay, waayo inta badan noolayaashu hal ama labo ama ugu badnaan 5 ayay dhalaan. laakiin halkani mar boqolaalka xabo ee farasbadeedkani labka uu dhalo waxa ay dhinac faa'iido ay u tahay biyaha badda noolayaasha kale ee ku nool, sidoo kalena waxa ay u noqotaa wado uu alle uu ku arsaaqo noolayaashaasi kale ee badda. sidaasina waxaa isugu jaango-ayo farasbadeedyadani tiradoodii iyo tirada noolayaasha kale ee badda si aanay midkood midka kale aysan uga badanin, waayo tira badnaanshahani halka mar ee boqolaalka xaba ah haddii sidaa ay ku sii socdaan badda oo idil farasbadeedyo ayay wada noqon lahayd. laakiin in farasbadeedyadani in badan oo ka mid ah in deegaanka gudaha badda in ay wanaajiyaan, qaybna in noolayaasha kale ee badda in ay ugaan ay u noqdaan waa faa'iido midkood midka kale ku dheeli tiran. waana mid ka mid ah aayadaha cajiibka ah ee gudaha badda alle addoommadiisii uu tusayo. haddana isla saacado gudaheedii farasbadeedkani fooshtay in saacad gudaheedii ama maalmo in uu haddana mar kale uu qaadi karo waa mid ka mid ah waxyaabaha kale ee cajiibka ah ee ka fiirsiga u baahan. inkastoo dadka badankoodii ay rumaysan yihiin keliya in ay dhadiga uur ay qaado iyaduna ay foolato, haddana labka farasbadeedka in uu uur uu qaado uuna dhalo waa mid ka mid ah dhacdooyinka ugu cajiibsan ee maanta dad badan aysan ka warqabin. waana tusaale cad oo muujinaya kala duwanaanshaha layaabka leh ee nolosha badda ka jirta iyo nolosha caadiga ah ee dhulka ka jirto. oo kale waxaa jiro noolayaal noloshoodii cajiib ay tahay oo nolosha gudaha badda lagu arki karo, laakiin maadaama imkaaniyaadka iyo dabagalka bani'aadamka ee nolosha badda hoosteedii ah aad ay u yar tahay in macluumaadkani si tafaasiil dheer ah loo ogaadaa waxa ay qaadataa waqti aad u badan, waayo noolayaasha badda in la gudagalo 24 saacba dhaqdhaqaaqoodii waa hol aanan sahlanayn. ta kooban ee bani'aadamka uu ogaaday sida farasbadeedka labka in uu uur uu qaado isagana uu fooshto ayaaba ah mid ka mid ah waxyaabaha ugu cajiibsan ee dunida biolojiga.